bilowgii sheekada waxaana loo sheegay in dad badan oo New Zealand ay u dhinteen bakteeriyada sunta ay hawada ku jirta 2 sano kadib dhacdadan. New Zealand waxay noqotay meel cilla ah. Dawladda halkan ayaa dhacday, xiriirkii ay la leedahay dunida intiisa kale ayaa sidoo kale dhamaatay. Dadka soo harayna waxay bilaabeen inay sii noolaadaan. Gaajada iyo xaaladda xun ayaa dadkan ka dhigay mid naxariis daran. waa ninna cidna ku kalsooneen, dadkan way isdilaan si ay isu cunaan. Tani waxay noqotay meel khatar ah in lagu noolaado. Kaalin wuxuu la noolyahay xaaskiisa, isagu ma taageersana in qof la dilo sabab la'aan. Dagaalka wuu ka fogaan jiray, laakiin haddana wuxuu ku khasbanaaday in uu is ilaaliyo xaaladaha khatarta awgeed. sidaa darteed buu qori u qaatay. Markii uu arkay nin u soo socda gurigiisa, ayuu xabad cirka u riday oo uga digay inuu ka fogaado gurigiisa. Sababtoo ah Kaalin wuxuu beertiisa ku soo beertay qudaar si uu ugu noolaado xaaladaha adag. Haddana ma uusan doonayn in qof la dhaco. Maalintii xigtay, 2 qof ayaa u soo dhawaaday gurigiisa si ay u dhacaan. sidaa darteed Kaalin wuxuu la soo baxay qori laakiin ma dilin. Xaaladahan waxay noqotay mid joogto ah. Mar walba ayay u imaan jireen inay bilileeqaystaan isaga iyo gurigiisa, laakiin Kaalin weligii qof ma dilin. Maalin maalmaha ka mid ah, xaaskiisa oo ka shaqeynaysa beerta ayaa lugta waxa ka jaray jiingad oo ka soo gaaray nabar, laakiin iyadu umaysan sheegin Kaalin waxa soo gaaray. Habeenkii waxay bilowday inay qayliso xanuunka awgii. Nabarkeedu aad buu xanuunkiisu u kordhayay. wax yar kadib, nabarku wuxuu u ekaa infection inuu qaaday. ugu dambeyn waxay la suuxday xanuunkii subaxdii hore. Kaalin wuxuu baaray nabarka xaaskiisa, wuxuu ogaaday in bakteeriyadii dadkii halkan ku dhintay sanado ka hor ay weli hawada ku jirto. Markii Kaalin uu taas u sheegay xaaskiisa, aad bay uga murugootay. waxay u baahdeen daawo gaar ah oo aysan hayn ayagu. Kaalin hadda wuxuu go'aansaday inuu halkan ka baxo si uu daawo ugu doono xaaskiisa. wuxuu xaaskiisa uga tagay qori ay ugu jiraan 5 xabadood. wuxuu u sheegay inay isku ilaaliso haddii laakiinse la soo weeraro. wuxuu u sheegay inay disho cidii soo weerarta. haddaba sidaan horeyba u ogeen in dadku ay dili jireen dadka halkan jooga, laakiinse markuu qof soo weeraro Kaalin wuxuu u sheegi jiray inuusan doonayn dagaal. laakiin haddana dadka qaar aad bay u walnaayeen oo waxay ahaayeen kuwa ku raaxaysa inay dadka laayaan. Kaalin wuxuu bedeshay jidkiisa uu ku socday. ugu dambeyn wuxuu soo gaaray gurigan yar. markuu albaabka garaacay, wuxuu sanqar ka waayay gudaha guriga. gudaha ayuu u galay guriga si uu u eego, laakiin waxa guriga ku kaydsanaa alaabo badan, waxaana yaalay hub badan. isla markiiba nin baa gadaal uga yimi oo qori ku qabtay Kaalin. odagan wuxuu rabay inuu dilo isaga, laakiin Kaalin wuxuu yiri u kaadi, uma imaanay halkan inaan qof wax yeelayo. xaaskayga aad iga xanuunsan, waxaan halkan u imid daawo aan u raadinayo xaaskayga. intii ay wada hadlayeen waa la soo weeraray. odagan oo lagu magacaabayay Samer ayaa u sheegay Kaalin inuu caawiyo. qolooyinka weerarka soo qaaday ayaa markii hore ku tuuray dab guriga dhexdiisa. hadda waxay bilaabeen inay si joogto ah guriga ula dhacaan xabado. Samer ayaa si geesinimo leh ula dagaalamayay dhammaan dadkan kaligii. qolooyinkii way ka carareen halkan markay ka adkaan waayeen Samer ayaa hadda wuxuu u sheegayaa Kaalin inuu cadow badan halkan ku sameystay. wuxuu ka codsanayaa inuu la joogo asbuuc oo sidoo kalena ka caawiyo sidoo ula dagaalami lahaa cadowgiisa. wuxuuna taas shardi uga dhigay inuu siin doono daawada uu doonayo. Kaalin ayaa ogaa inuu daawadan meel kale ka keenin, waa inuu dhigaystaa Samer xitaa isagoo raali ka ahayn. Samer ayaa u sheegay inuu dhufaysyo badan u sameeyo gurigan, laakiin meeshan waxay u baahan tahay daryeel badan. Kaalin wuxuu mar ahaa injineer oo wuxuu markan wax badan ka hagaajinayaa guriga Samer. waxa uu dhigayaa dabino koronto oo badan. dhanka kale waxaan aragnaa xaaska Kaalin oo si tartiib ah awood uga tagayso. isla mar ahaantan waxay dareemaysaa inuu qof isku dayayo inuu galo gurigeeda. waxay si qorsheeda u weerartay ninkan, ul ayayna madaxa uga dhufatay. waxay rabtay inay ninkan ku dhufato xabad, laakiin geesinimadii inta la ekeed ma lahayn. waxay ku qaaday gaari gacan, waxayna ka fogeysay guriga iyo aagiisa. dhanka kale waxaan aragnaa Samer iyo Kaalin oo wali ka shaqeynaya hagaajinta nidaamka difaaca guriga. habeenkii Samer wuxuu u sheegay Kaalin in la soo weerari doono. Kaalin wuu xanaaqay kadib markuu tan maqlay, sababtoo ah Samer inuusan u sii sheegin tan hadda ka hor. xitaa wax badan ma uusan isu diyaarin weerarkan. dagaal baana labadoodii dhex maray. Kaalin wuu garaacay Samer, laakiin Samer wuu ogaa in Kaalin uusan weligii sameyn doonin tan oo uusan nafta dhaafin karin. sababta ma jecla dagaalka iyo inuu qof dilo. Kaalin qofna ma soo weerarin habeenkii. subaxdii markay ugaarsi tageen, dad bay isku dhaceen wayna la dagaalameen. Kaalin aad bay u garaaceen dadkan ka hor intaanay dilin Kaalin. Samer ayaa toogtay 2 nin oo dilay oo wuxuu ku yiri Kaalin, ma doqon baa tahay, miyaad kari weyday inaad toogatid waxbad ku dhufatid raggan ku dili raba. wuxuuna u sheegay inaan liisu aabayeelin waqtiga dagaalka lagu jiro. markii ay guriga yimaadeen ayaa waxa gurigooda lagu soo weeraray drones. Samer iyo Kaalin ayaa toogtay oo burburiyay diyaaradahan. burburinta diyaaradahan kadib,
kooxda weerarka soo qaada dib uma soo weerarin oo way iska baxeen. dhanka kale waxaa aragnaa xaaska Kalen waxay si lama filaan ah u dareentay in qof gurigeeda soo galay oo isqariyay. markay u dhaqaaqday inay soo hubiso mise waxay aragtay gabar yar oo ah inantii saaxiibteed oo qoyskeedu hadda ka hor dhinteen. ka hor intaysan dhiman hooyada gabadhan waxay u sheegtay waxa ku saabsan guriga xaaska Kalen. taasi waa sababta ay halkan u timi. xaaska Kalen waxay ku haysaa cunugta yar guriga, waxay siisaa cunto iyo jacayl. sababtoo ah xaaska Kalen weligeed ma noqon hooyo oo way caruur jeceshahay. waxay go'aansatay inay gabadhan sii haysato. dhanka kale waxaana la tusayaa gabadhan lagu magacaabo Don Lady. kooxdan waxay dhici jireen dadka oo way leyn jireen. halkan Kalen oo weli ku sugan guriga Summer ayaa wuxuu maqlayaa dhawaaqyo ka imaanaya dhanka hoose ee guriga. wuxuu bilaabayaa inuu xabad la dhaco isagoo aan ka fakerin waxa meesha ku jira. laakiin Summer ayaa u yimid oo qoriga ka qabtay isaga. wuxuu u sheegay inuu ilmo yar ku jiro qolka hoose kaasoo aad uga baqa dadka. taasina waa sababta uu maalmo badan halkan ugu dhuumanaya nuunahani. Summer ayaa ka badbaadiyay koox la yiraahdo Don. taas awgeed kooxdaas waxay noqdeen cadowga Summer. Summer ma lahayn hal cadow ee wuxuu lahaa cadow badan. xaaska Kalen iyo gabadh yareed oo kula noolad guriga ayaa haddana waxa soo weeraraya odaygii ay madaxa ugu dhufanaysay usha oo ay ku qaadaysay gaari gacanka. markan iyadu haddana way weerartay oo haddana guriga ayay ka saartay. waxay rabtay inay disho laakiin way awoodi weyday sidii hore oo kale. markaas ayuu ninkaasi ku oranayaa idil haddii kale waan soo noqon doonaa. dhanka kale waxaan aragnaa ninkii odayga u ahaa kooxdii oo u sheegayay Summer Kalen inuu ka badbaadiyay ilmaha yarka ahaa cadowgii soo weeraray. way ogaayeen in dabino badan ay ku hareersan yihiin guriga. taas waa sababta ay u adeegsanayaan taangi. waxay guriga ku garaacayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Summer iyo Kalen waxay sidoo kale isku dayayaan inay badbaadiyaan gurigan. kadib isla markii ay fursad heleen cadowga Summer wuxuu soo galay gudaha hoose ee guriga halkaas oo uu sidoo kale kula soo kulmay ilmihii. wuxuu ku xiray faashad isagoo ka xiraya afka iyo gacmaha. kadibna guriga wuxuu ku soo galay hab qorshoodiya halkaas oo ay Summer iyo Kalen ay labaduba ay joogaan. waxa uu toogtay Summer oo ku dhaawacmay halka ka hor inta uusan dilin Kalen. Kalen iyo ninkan way isku naxeen inay is arkaan. waxaan halkan ku ogaanay Kalen inuu yahay wiilka ninkan xun ee odayga ah. odaygan wuxuu sidoo kale rabay inuu Kalen ka dhigo dilaa isaga oo kale ah. laakiin markii Kalen uu doortay nolol nabad ah oo bilaa dagaal ah inuu ku noolaado ninkan uu ka tagay wiilkiisa Kalen. ilmihii uu afka ka dumanaya odayga oo hadda aabbo u noqday Kalen wuxuu rabay inuu ka dhigto wiilkiisa. taas oo kaliya ma ahan laakiin waxa kale uu rabaa inuu ka dhigo dilaa isaga oo kale ah. ninkan odayga ah oo aan ula jeedno Kalen aabihii wuxuu ka xaystay asxaabtiisa wuuna ka tagay halkan. haddana waa subax. Kalen wuxuu toddobaadkan ku qaatay guriga Summer sida ballanku dhigayay. hadda Kalen waxay ahayd inuu sidoo kale helo daawada xaaskiisa uu rabay. Summer ma jibin ballankiisii. wuxuu siiyay daawada uu ku yiri waan ku siinayaa. wuxuuna sidoo kale ku yiri ilmahan gurigaaga geyso isagu halkan kuma nabadgelayo. Kalen ma rabay inuu ka tago Summer. wuu ogaa inuu Summer u baahan yahay isaga sababtoo ah wuxuu ahaa dhaawac. laakiin Summer wuxuu leeyahay iga tag oo xaaskaaga badbaadi. dhaawacan waa nabar yar waa ka bogsanayaa. isla markuu Kalen guriga yimi inantii yareed oo naagtiisa la nooleed oo haysata qoriga ayaa toogatay oo xabad ku dhufanaysa. laakiin ujeedkeedii ma hagaagin oo ahayd inay disho qofka albaabka soo galay. Kalen si degan ayuu u dajiyay inanta oo qoriga ayuu ka qaaday. markiiba wuxuu u tagay naagtiisii oo aad u xanuunsaneed wuxuuna ku daray cirbadii. xaaladeeda aad bay u xumeyd. Kalen wuxuu dareemay inay dhimatay saameynta daawadiisii wanaagsaneed awgeed. markiiba miyirka u soo laabtay. miiskii qadada ayay ku sheekaysanayaan. Kalen ayaa xaaskiisa baraya wiilkii uu la yimid. xaaska sidoo kale waxay baraysaa gabadhii la nooleed iyada. labaduba si kastaba waxay doonayeen caruur. hadda qoyskoodu wuxuu noqday qoys dhammaystiran oo caruur haysta. laakiin Kalen weli wuu yara murugoonaya sababtoo ah wuxuu ogaa in Summer u baahan yahay isaga uuna dhaawac yahay. halkaas ayuuna ka tagay si uu caawiyo Summer. markan Summer gabadhiisa ayaa u timid inay isaga weerarto oo disho. gabadhan cid kale maaha waa naagtii lagu soo bandhigay kowdii filimka oo lagu magacaabayay Don Lady. haddaba su-aashu waxay tahay maxay gabadhan u doonaysaa inay disho aabaheed. sababtoo ah aabaheed ayaa ka tagay iyada iyo hooyadeed kaligood hal mar marka ay ugu baahi badnaayeen aabaheed. waxay markan doonaysaa inay ka argoosato aabaheed. laakiin hadda Kalen wuxuu kale u yimid inuu caawiyo Summer. dagaal ayaa halkaas ka qarxay. Kalen iyo Summer si fiican ay isaga dhiciyay naagtii iyo ciidankeeda soo weeraray. dhanka kale waxaan ogaanay ninkii odayga ahaa oo sidoo kale ahaa aabaha Kalen inuu la socdo gabadhan Don Lady la yiraahdo oo soo weerartay Summer. Kalen si uu naftiisa u badbaadiyay kama labayn inuu dilo aabihii wuxuuna dilay aabihiis. dhanka kale Summer ayaa gabadhiisa ku suuxiyay qori koronto ah. dad badan ayaa ku dhintay dagaalkan. aynu ka soo qaadno dagaalkan inuu ahaa mid barbardhaca taas oo hadda asxaabta Don Lady ay ku kaxeynayaan baabuurkooda.
Samir hadda amaan buu ku yahay gurigiisa mid cadowgiisa kamid ah ayaa dhintay midna wuu ku adkaaday Kalin wuxuu ku noqonayaa gurigiisa wuxuuna rabay inuu nolol wanaagsan kula noolaado qoyskiisa sidaa darteed ayuu dabina ugu sameynayaa gurigiisa si ay cadowga ugu dhacaan daminkan oo ninna ugu imaan gurigiisa intaas kadib sheekadu waxay ku dhamaanaysaa halkan iyo qoyska Kalin oo faraxsan haddaba daawade haddaan nala soo gaartay ilaa dhamaadka fadlan nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkan like na muuqaalkan saar si uu dad badan u gaaro mahadsanid